السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. داود يالكسو دوادا برنامج كيني مدشا قويهانكا وعلى بحليادان وكالات كلا سعطان شاشد عالمي غاي هون كيبل تي في. برنامج كي غايا من تمرتي وحا يقوه دهب حاج عيسى والله يقانو الدهب الدولو مدحا أوروركا ودانيغا هرمارينتا الصوماليات ماركا مقعيس لسوغا بيلو يقانو دادهيه دهب وغورين كسو دواو برنامج كا مدشا قويهانكا هون كيبل تي في. aad ayaad mahadsantahay adiga iyo teamkaaga home cable waan idin mahad celinaya waana ku faraxsanahay fursadan aad siiseen sidoo kale dahabo waxa ay kamid tahay aqoon-yahanadii Soomaaliyeed ee u dhabar adeegay inay ka shaqeeyaan gudaha dalka Soomaaliya markii ay burburtay dawladii dhexe ee Soomaaliya xilligaas oo dadku baahi ay u qabeen dad wax u qabta ayay dahabo waxa ay furtay meelo kijina oo ay dadku cunto u karin jirtay dahabo waxa tahay qof kasoo shaqeeyay Soomaaliya waqti dheer oo aad u xun waxaadna aqoon u leedahay dadka Soomaaliyeed baahidooda iyo waxa ay u baahan yihiin aqoontaada maadaama aad la soo shaqeysay intaas aad u leedahay dadka qaxootiga iyo waxa ay u baahan yihiin inaad faahfaahin kooban naga siiso ugu horeyn aad ayaad u mahadsantahay waa run macnaa dadkii dagaaladii ay aafeeyeen ee Soomaalida ahaa qaasatan u badnaa haween iyo caruur aad ayaan waqtiga wuxuu ugu qabtay marka aan sameynay cuntadii in loo kariyo maadaama cuntadii ceerinka laga dhici jiray si ay dadkaas u badbaadaan waqtigaana waxaan badbaadinay ilaahay amarkiisa iyo idankiisaba dad ka badan 500,000 ayaan maaragtay aan ka aafadaas ka badbaadinay sidii ayaanan maaragtay wadnahayga u siiyay inaan wax u qabto dadka dhibaataysan ee Soomaalida ama dagaaladu ha aafeeyaan ama guryo la'aan ha ku dhacdo markaan ka tagay Soomaaliyana sida ayaan dadka ugu istaagay wadanka Ingiriiska xafiiska daadiye ayaan ka sameeyay waan u gudbeynaa midaas maxaa kugu dhaliyay wareen inaad fakirto inaad u samayso meel cunto lagu kariyo oo dad masaakiin ah lagu quudiyo horta aniga markayga hore waxaan jeclaan jiray inaan ka shaqeeyo xafiis aan lacag fiican ka helo gaarigayga aan wato darawalkayga aan wato markay dagaaladii dhaceen ayaan runtii waxaan arkay dad aad iyo aad u dhibaataysan macnaa dad calooshi weynaatay lugihii barareen marka waan fakiray waxaan isiri qofkan anoo waliba dahab wata oo maaragtay labisan markaan arkay dadkii saa ku dhacdaan waxaan isiri ilaahay adiga iyo ayagu wad u simantiin sidee bay ku dhici kartaa in aad naxaragootid oo dahab haysatid ayaguna ay dhibaatada ay haysato marka dahabkii waan iska gooyay waxaan ku talagalay dadka inaan u istaago sidaas ayaa igu dhalisay dhibaatadii aan arkay oo runtii aad qalbigayga wax u gaarsiisay aan markaa dalbaday inaan dadka aqoontayda iyo kartidayda aan wax ugu qabto intaan anigu kaligay xaragool ama noolaan lahaa xilliga aad bilowdo hawshaas waxa ay xilli Soomaaliya dhibaato xoog leh ka jirtay dhibaato maxaad kala kulantay in hawshaas dadka aad ka dhaadhiciso in la furo meelo saas oo dadka lagu quudiyo iyadoo aan ognahay in Soomaaliya markaas laga dhex shaqeeyo dad la caawinaysa fududeyn runtii waqtigaas markaan sameynay ayaa ka hor intaanan bilaabin cuntada oo ceerin ayaa la qaybin jiray cuntada markay dadku isku yimaadaan masaakiinta ah oo hay'adihii la tuso ayaa laga qaadan jiray marka waxay noqotay inaan fakiro war dadkan sidee wax loogu qaban karaa markaan aan u fakiray hadii cuntada la kariyo ninkii baahan un baa cunaya ninkii aan baahnayn ma uu cunayo marka sidaasaan u sameeyay laakiin waxa ay kala kulmay threatan badan in la ii dhaarto intaanan xataa bilaabin la igu yiri hadaad samaysid waa lagu dilayaa dhibaato lagu gaarsiinayaa hay'adii naftigeedii aan maaragtay igu yiraahdeen hadaad barnaamijkaas samayso daba inuu qatar naftaada u yahay ogow laakiin waan u bareeray inaan qatarta qaato maadaama xilliga loo bixiyay xilliga caaga bararka dadkii lagu hibararayeen calooshi weynaanaysay qofkiina uu usbuuc kadib u dhimanayay marka waxaan isiri inaad kaliga noolaatid iyo inaad dadka wax u qabatid waxay ku fiicantay inaan ku dhex dhinto anoo wax u qabanay sidii ayaan dadka ugu istaagay waxyaabo badan dagaalka ka horna marka xabad ayaa la igu dhiftay madaxa oo madaxayga uu dhaawac baa ku yaala taasna waxa keentay ka horna intii ay dagaaladu dhicin dadka ayaan wax qaban jirnay oo waxaan waday mashaariic dadka wax loogu qabto marka ilaahay ka uu iga badbaadiyay waxaan ku talagalay hadaan bataa ku dhiman waay waqtigii ay tayadu gashay inaan dhiman doono waa gartay ilaahay baa ka soo bixiyay xilligaasna waad ka soo gudubtay kadib waxaad u gudubtay inaad aado dalalka qurbaha inta qurbaha aad joogtay maxaad hawshaadi aad ugu qabanaysid dadka masaakiinta hay'ada u baahnaa inaad wax u qabato maxaad ka sii qabato halkaas ka sii qurbaha markaan tagay macnaa niyadeyda waxa ku jiray dadka Soomaaliya jooga oo aan dhibaatadan uga soo tagay
mana garanaynin sida ay systemku u shaqeeyo oo qurbaha uga shaqeeyo maadaama aan Soomaaliya ka shaqeeyo ogaa sida dadka Soomaaliya jooga iyo hadii Soomaaliya jooga wax looga raadiyo marka waxaan ku fakiray inaan Ingiriiska jooga inaan ururkan daadihiyo oo marka asagaba la bilaabay inaan xagaa ka furo in marka aan isku dayo inaan dadkii Soomaaliya jooga wax u qabto qorsheygu ma ahayn inaan dadka UK jooga wax u qabto laakiin markaan la kulmay dhowr hay-adood dhammaantood waxay ii sheegeen in aan looga qaban karin dadka Soomaaliya halkan kadibna waxaan arkay marka ururka waxaan u sameeynaa sharci ama constitution ilaa hadda la fiiriyo sharciga ururkayga wuxuu ku beesgaraysan yahay Afrika iyo Soomaaliya marnaba UK kuma beesgaraysna marka taana waxa weeyaan niyadeyda wixii ku jiray sidii baan ururka ku sameynay kadibna waxaan arkay Soomaalidii qaxday tagtay UK amaba Europe tagtay inay iyaguna dhibaataysan yihiin waayo wadan nabad ay tageen laakiin dhibaatada intii kala dhan ba haysata luqadii wadanka aysan ku hadli karin dhaqankii wadanka oo ay kala duwan yihiin diinahan oo inta badan la kala duwan yahay systemkii sida u shaqeynayay hay'adihii oo kala duwan iyo sida Soomaaliya looga shaqeynay marka waxaad moodaa dadkii qurbaha tagay inuu xoogaa jahawareer ayagii ku dhacay qofkii soo galo on marka sharci haysan oo asaga naftigiisa uusan meelna laga aqoonsanaynin oo uusan haysanin wax ama isku daweeyo caafimaad ama meel uu seexdo wax qarash ka bixinayay jireen marka sidaas ayaa waxaan isiri Soomaaliya wad ku noqon doontaa bal tan wax ka qabo tii way ugu dheeraataba baahidiiba maalin walba ka badan tahay dadku way imanayaan marka sidaas ayaan xafiiskaas ku bilownay howlo kala duwan waan ka qabanaa okay inta halkaas joogtay ma sameeyeen wali inaad inta isku timaadaan Soomaalidiina joogtay dalka aad ku sugneed inaad isku timaadaan aad sameeysan ururo ka shaqeeya dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed gudaha dalka inaad idinka meeshiina jooga abaabushaan gudaha ka shaqeeyaan runtii dhowr jeer waa la isku yimid horta ururada Soomaalida dhibaatada haysata ma aha dad inta isku yimaadaan coalition sameeysan kara ee wax wada qabsan kara marka taasna xataa kuwii UK ka shaqeynaya ku beesgaraysan oo dadka isla UK jooga qaxootiga inay wax qabtaan la rabay ayaa la isu keenay waay Soomaaliya inay yihiin dad individualista oo qof walba u jecel yahay inuu magaciisa gooni wax ku raadsado waxaas dadka ama wax ugu qabto ama soo rabaa ka yeelo horta waan ku fayl garownay laakiin waxaan sameeynay in laga hadlo in urur walba iskiis wuxuu u qaban kara dadkii inuu u qabto marka way jiraan ururo Soomaaliyeed oo wax qabta qaar dharka aruuriya oo dharka xataa Soomaaliya geeya qaar maaragtay hay'adaha la xiriira oo xafiis ka sameeyay Soomaaliya qofba sibay wax u sameeyaan marka waan ka hadalna dhowr jeer waxa jirta xataa marar inta isku nimaadno inaan lacag aruurinay inaan maxay ahayd anigu xataa aan howl mar qabto weyn oo aad lacag loo aruuriyo oo goonta xamar loo dhiibay marka waan mar walba qalbigayga ku jirta Soomaaliya marna kama isa bixinin ama aan halal u sameeyno ama aan koox u sameeyno markaas ay markii ugu fiicnaaday ahayd oo Soomaali badan inta isku timid oo ama shakhsiyaad ama ururo wata aan lacag fiican ururinay oo lacagta markaa loo dhiibay odayaasha Muqdisho jooga waxaa jirta in dhalinyaro badan ay ka hayaamayaan dalkooda Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo dhinac kasta ay u hayaamayaan dalalkaas Yurub oo adiga aad ku sugneed dhalinyaro markii halkaas tagaan waxay kala kulmaan sharciyan si fudud lagu siinin dhibaatadii ay u soo mareen ay dib kala sii kulmaan dalkii ay u cararayeen arrimahaas maadaama ururo Soomaaliyeed meesha iska abaabulata aad tihiin maxaad ka qabataan runtii waxaan aragnay dad badan oo aan sharci haysanin waxayna kamid tahay wax qabadkayaga anagu wax qabad kala duwan ayaan horta sameeynaa dad rabta inaan ku faahfaahiyo xafiiskayaga wuxuu leeyahay wax la yiraahdo drop in oo dadku ayagoon balan lahayn ay iska yimaadaan marka dadka imaanaya problemo kala duwan ay wataan qof ayaa warqadiiba loo soo qoray aan garanay sida loo aqriyo ama waxa ku qoran qof ayaa maxay ahayd gurigiisii dhibaato ka haysata ama ka baxbaa la yiri ama guri la'aan haysa ama waxa jira dad gurigii markay wiil iyo gabar isguursadeen ay gurigii dageen ku ilmo dhaleen oo guriga ciriiri ku yahay marka qofka waxa guriga lagu siiyaa marba tirada ay tahay marka isaas guriga ciriiri ku yahay oo meel la dejin waaye dad waxa jira korontadan hadda halkan joogtay gaaska aan iska bixin karin because anagu waxaan ka nimid dhul kulayl ah xagana qabow waay marka waa inaan dadkaas oo waxyaabo kala duwan wata inaan wax u qabano marka waxa kamid ah waxaas dad sharci la'aan haysata sharcigii wadanka Ingiriiska waa la adkeeyay ayaan dhawad xataa waxay sameeyeen hab maarta cunsurnimo ku jirto oo waxa la soo qaatay faan waxa lagu qoray ka bax wadankayaga ama waan ku soo qabanaynaa waxa dhacday in marka anagu waxaan u raadinaa sharci baan u raadinaa dhibaatada marka jirta dadka waxa jira system sharciga lagu helo systemkaas marka sheeganaysid inaad sharci heshid inaad sharci raadsatid waa inaad sheegtaa waxaad wadanka uga soo tagtay
dhibaatada wadanka aad uga soo tagtay waa inaad sheegtaa marka dhibaatadaas waxaa kamid ah in qofka uu yiraahdo ama qabiil hebelan oo qabiilkaas ay soo dilay ama dhibaatadas marka hadaadan sheeganin wax dhibaato oo lagu abuse garay aad sheegan waxay ku arkaa inaad tahay qof u yimid wax la yiraahdo economic security oo inaad meesha inaad dhaqaale soo raadsatay qodobada ay Geneva Convention ama qofka lagu siiyo waa qofkaas in wadankiisa uga soo tagay nabadgelyo taas oo ah in ama urur siyaasadeed ku jiro oo lagu raadsanayo ama inuu yahay qof waxa ethnicity marka ethnicity waa qabiil laakiin anaga ma aha qabiil saan raana macna qofkaas haduu yahay qoomiyad وياه أنا على التريان أنا هو ودن كلا تصاص وكلها نجوجا أما كان مرك لكن أنا وحني سنيستيج مرك لقاد قبيل أسبدله مرك قبيل كذا نوح على ماينورتي مياتا ماينورتي وذاتك لقيت البدنية أما جي يقبل مرك وحنا نقطة ذاتك إني وذا ماينورتي شاكتان سأد كويس شرعي قاس حدنا ماينورتي شاكل لكن محل وجو جيس شخصيا ذاتك ودن immigration كله تجاي وعدد أرمها صومالي نصوب باري وعدد وحول بعض الشيء مرك هدي وحي أذحكوه اللي هذا الشيء جنين شرعي قال جوسو دي waxa jooga 20 sano 12 sano joogan sharciyaysan dhalinyarada markay ku dhibaataysan yihiin aniguna runtii waxaan jeclaan lahaa dhalinyaradu intay qurba aadi lahaayeen inay wadankooda ay wax ka qabtaan oo joogaan waayo wadan walba waxa dhisa waa dhalinyaradiisa qaxootiina systemkiina waa in markaas aan anagoo kale marka aan fiirino war maxaa qofkaan wax ku heli kara waa inaad isku daydaa inaad wax sheegtid si qofkaan sharci ku helo marka way adkaata hadda dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan ku talama Soomaaliland ka yimaadaan ama koonfurta ka yimaadaan inay wadankoodii joogaan xoogooda ku celiyaan wax ku qabtaan waayo waxa looga faa'iideysanay wadanka uu hagaagi way dadkii aqoon-yahanka ama wax tarka lahaa ama dhalinyarada cudud wadanka u hada ka wada tagtay okay dhalinyarada Soomaaliyeed cararay waxa ay ka carareen dhibaato dalka ka jirta ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid nafeed oo ayaga naftooda ila carareen ha noqoto laakiin qof walba markii Europe uu tago waxa soo bilaabaya inuu yiraahdo meeshan filaya maaha isbedel weyn jiro meesheeda ayaa ii fiicneed haddana qof walba waa uu sii socdaa sababta uu socdana waxa ay tahay dahabo 12 sano ka hor tagta adiga Europe urura ka soo furatay hadda waxa uu doodaa qof walba waxa uu doonayaa inuu waxna soo barto dhaqaalana soo sameeyo maxaad kula talinaysaa dhalinyaradaas aanan ka fiirsiga lahayn badaha iyo muxuu saxaraha iskugu shubay inay Europe iyo meel ka sii shay u hayaamaan runtii waxa jirta dhalinyaro badan oo Europe joogta oo laakiin waxbana qabanin oo qaar badan ay ku jiraan meelaha jaadka ay joogaan marka ma aha inay horta janno u ordeen oo Europe hadii la tagay janno ma aha hadii Europe la tagana shaqo ma aha way adag tahay horta shaqada qofku uu rabo inuu ka helo Europe waayo markaad adiga oo aad iskuul weyn aad wadanka tagtid oo istiraad ilaahay shaqadaas ayaad rabtaa inaad qabatid hatta even dadka aqoon-yahanka oo shahaadooyinka haystay dadka wadanka u dhashay ayaa shaqooyinka u baahan oo iyagii baa shaqo la marka waxay noqonaysaa in shaqada kugu soo aad inay noqoto ama qofkaas inuu noqdo qof darawal oo bas wada ama inuu noqdo qof maqaayad ka shaqeeyo ka aborter wax sameeyo ama qof cleaner oo wax nadiifiya marka dhalinyaro badan way u cuntama weysay dad iska shaqeysto nasiib lana waa jiraan oo wax bartay intooda badan aan waxba aysan hayna waa jiraan qurbaha ma in qofkaas uu nabadgelyo ugu tagayo waxa nabadgelyada adkaatay because markii dambe dhalinyaradii baa isdishay gaangisay noqdeen say u survive garoobaan gaangiska waxay noqdeen inuu dagaal dhex maro in la istoriyo in la isdilo marka dilka horta meel kasta uu kaaga horeeya anu waxaan oran lahaa horta wadankayaga waa aad u barwaaqaysay anu waxaan tagay 2002 alifkii anoo ka soo helay iyaan tagay runtii wadanku waa wadan barwaaqaysan kheyraad leh cunto macaan leh qudaar leh wax walba leh wuxuu u baahan yahay kaliya inaan aamino inaan ka shaqeysano waxa ku soo haray waa dhimashada qof walba horta waqtigiisa ma dhaafay meeshii marka ay loogu talagalay ayuuna ku dhimanaya ma aha in wadankii cadaadiska ka jiro qofka inuu noqon karin qof wax sameeysan kara adiga marka moralkaaga ama sida niyadaadu ay tahay inaad wax ku sameeysid ay wixii ku xirnaanayaan marka dhalinyarada intii hadda waad aragtay dhibaatadii dhacday iyo inta ugu dambeysay 300 oo dhalinyaro ay dhimatay marka intaan bad ku dhiman lahaa walaa anigu geed hoostiis inaan umas igu qaniino ayaa iiga fiican marka anigu dhalinyarada waxaan oran lahaa wadanka ay shaqo taala wadanka ay aqoon taala hadaan iska dhaafno qabiilka iyo maaragtay xaq jirnimada aan iska dhaafno oo qof walba uu isagu yiraahdo sid ku noolaataa sideed wadanka ugu qabataa sideed familygaaga iyo dadkaaga adiguna aad ku soo baxdaa wax waa laga sameyn karaa anu markaan tagayay Ingiriiska xootinimo uma taginin waxaan u tagay waxbarashaan u tagay waxbarashadan u tagan waxay ahayd in aan dadkii aan wax u sameyn jiray aan u soo noqdo waayo waxaan sameynay mashruuc ah wax la yiraahdo revolving loan fund ama
qofkan inta lacag siisid kan siisid deyn waa deyn lacagtaasi kan markuu hal sano ku shaqeysta ka qaad qof kala sii kan markaad ka qaad marka waxa waay sida loo hormariyo small enterprise ama business yar oo miiska lagu gadan karo marka kaasan u tagay inaan dadka sidaan ugu soo noqdo oo aan ugu sameeyo ganacsatadaas tii ayaa waxay noqotay marka inay waxbarashadii haddana aan waxbarasho kala sii galay sidaa marka inaan ururka ku sameeyey noloshiina runtii ay adkaato waayo waad aragtay qofku markuu qof yahay ka shaqeynaya relief ama humanitarian asagii baa taargad noqonaya Soomaaliyana waa nasiib darrada haysata adiga hadda dadka maartay ishu qabanayso ama dadka wuxuu qaban lahaa aad raadsatid oo qofkaas aad dishid maxaad yaa dadka wuxuu qabanaya marka dhibaato waxaa jira dad badan waad ogeed dhaqaatiira la dilay saraakiil la dilay waxa la dilay dadkii aqoon-yahanka ah waxa la dilay dadkii samafalada ku jiray taas ayaa xoogaa ay haakisay oo dad badan oo ila taliyay igu yiraahdeen wadanka dad ku noqotid adigii baa taargad noqonaya ma ahin anu wadankayga meelna kuma dhaafsadan wax kasta dhacaan okay dahab aad u mahadsan aan u soo laabano dalka Soomaaliya dhowr iyo 20 sano kadib dalka Soomaaliya waxa moodaa inuu ka soo baxay dhibaatadii soo gaartay markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay dawladdii ku meel gaarka way ka baxday waxaana loo gudbay dawlad federaal ah in maamul goboleedyo la sameeyo waxaana ka socda dhisme aad u ballaaran qaybta ay ku leeyihiin dadka adigoo kala ah dalkii inta ka hayaamay wax u soo bartay ee dalkii intuu soo laabtaan wax u qabtaan looga fadhiyo qaybta aad ku yeelan kartaan maxay tahay horta dadka aqoon-yahanka ah ama hay'adaha samafalada sameeyay ayaga hore dad siyaasiyiin ma aha oo iskuma keeni karti inaad tiraahdo humanitarian aan ahay oo bini'aadnimo wax ka qabanaya haddana siyaasaduna waa wax iska game ah oo ayadu saaxiib ma laha interest leeda marka anaga qaybta nooga furan waxay tahay inaan dadkii dhibaatadu gaartay inaan ku qabano in dhalinyaradii wax loo qabto in ilmihii wax loo qabto waxa kamid ah marka waxbarashadii oo la ballaariyo hadda intii burburku jira dad badan ayaa sacrifice sameeyay oo iskuulaad private sameeyay si ay dadka u bartaan runtii dad badan aqoon ay u yeeshaan hadii kaleeto wadanku isla dami lahaa waayo jiilba jiil ka dambeeya waa dadka mustaqbalka wadanka hogaamin doona hadii marka intaas oo jiil 20 sano intii dhalinyaro ay ka burburto yaa wadanka gaabkaas wuxuu noqonayaa gaab wadanka ka maqan ama xaq hadhow dadkaas noqon dad wax u qaban lahaa ama dad siyaasadii gal lahaa marka anaga wax noo furan waxay tahay inaan dhinac waxbarashadii kabno inaan dhinac caafimaadka kabno inaan maxay ahayd dejintii dad inaan sameeyno inaan waxyaabo horumar ah sida ururkayga magacayga kama tababaro inaan furno hadda anaga kale waxa noo qorsheysan dhalinyarada inaan tababaro u furno tababaradaas waxay tahay inaan ogaano baahida dhalinyarada maxay dhalinyaradu rabaan inay mustaqbal ku shaqeystaan hadduu qofkaas rabo inuu technician noqdo hadduu rabo inuu darawal noqdo hadduu rabo inuu caafimaad aado anagu manihin macnaa jaamacadii midna manihin laakiin tababaro ayaad sameyn kartaa qofkaas uu ku soo kici karo si uu markaas u ogaado pathwayga uu rabo ama dariiqa uu rabo inuu maro qofkii raba inuu darawal noqdo qofkii raba inuu beeraley noqdo qofkii raba inuu kalluumaysi inuu noqdo qofkii raba inuu jaaf noqdo cunto karin barto qofkii raba inuu harqaan barto waxaan rabaa inaan dhalinyaradii aan baarno baahidooda kabacdina sidaan wax ugu qaban lahayn iyo hooyooyinka sidaan kuu sheegay dumarkuna anaga waxay noo yihiin taargetka koowaad waayo waa hooyaduna waa asaaska guriga haddii hooyadu kaa burburto ilmahii dhashana waxba ma sameynayaan waa gartay hadda markii dib u dhiska dalka uu ka bilowday xoogga leh waxa bilaabatay qurbo joogtii dib ugu soo laabtaan dalka durbaga waxaa bilowday sida aad ka dhawaajisay waxaa jira dhalinyaro ku soo baratay dalka Soomaaliya gudihiisa wax intii burburka uu socday jaamacad aadayay iskool dhiganay fursadaha shaqo ee ka banaanaan kara dawladda ama hay'adaha yaad isleedahay xaq ay u leeyihiin dadkii dalka gudihiisa wax ku bartay ee intaas burburka dhex joogay mise dadkan dibadda ka yimid aniga waxay ila tahay in labadaba loo baahan yahay dadkii gudaha ka yimid oo gudaha joogay inta aan bixin oo dhibaatadii ku jiray oo haddana wax bartay horta ahmiyad ay leeyihiin gaar ah in la siiyo oo dadkaas loo macnaa ay ka shaqeeyaan hay'adaha ama ha ahaadaan hay'ado dawli ama ha ahaadaan kuwa maxalliga ah dadkii banaanka ka yimid qurbo joogiina ayagii naftigooda in la takoorana ma ahano waxa weey waa dad soo bartay maxay ahayd soo arkay qurbo wuxuu yahay ahmiyad la yimid wadankoodii jacayl la yimid aqoon haday leeyihiin raba inay wadankii ku celiyaan marka aniga waxay la tahay qof walba meeshu ku haboon yahay in looga faa'iideysto haddii qofkaas qurbo joog yahay oo uu soo bartay arrimaha caafimaadka waa in wasaaradda caafimaadka nooleeyo waxa isla shaqeyn kara kuwii gudaha joogay iyo kii qurbo joog ah waayo qurbo joog wuxuu soo arkay qurbihii sida ay maarta u socdaan anaga wadamadii hormaray waxaan soo ogaanay waxa ay ku hormareen
marka haddaanan sirta aan soo ogaanay aanan wadankayga gelinin de annaga weligan waxaan ku jiraynaa inaan noqono wadan burburay. marka dadkii aqoon-yahanka ahaa oo wadankii kusoo noqdayna maaha inay dominate gareeyaan oo yidhaahdaan annagaa dadkan ka fiican. kuwii gudaha joogana waa inay iyaguna ay walaalahooda ay ogaadaan inay aqoon iyo waayo aragnimo la soo noqdaan. ninkan xataa wax baran waayo aragnimo la soo ninka awal islaha wadankan dhibkiisa iyo kan wuxuu ogaaday wadankiisa in wax ka fiican aan la arkin. laakiin mid ayaa jirta oo ninkan kusoo bartay dibadda waxa uu sitaa shahaado la aqoonsan yahay, aqoon la taaban kara ayuuna soo bartay. hay-adaha oo shaqada u doonanayaan waxa ay qiimeynayaan shahaadooyinka dadkan qurbaha ka yimid ay sitaan. wiilkii ama gabadhii wax ku baratay gudaha dalka Soomaaliya xogaasoo meeshaas dib u dhac ballaaran kala kulmayaan oo wixii ay soo barteen ay u soo dhibaatoodeen inay ka kac yihiin oo waxa ay ka jireen Soomaarkeen. wallahi waxaan nasiib darro ah qof wadankiisa wax ku bartay shahaadadii wadankiisa lama aqoonsanayo. qofka shahaadadan uu bartay in la aqoonsado waa ana waxaan qabaa 100% hadduu qofkaasi ka soo baxay xataa local school oo meesha ku yaala degmada in loo aqoonsado waayo anagu waa wadankeeni wadan ajnabi ma joogno. wadan ajnabi markaad la tagtay shahaadadaada ku aqoonsan waaye laakiin kaaga waa inuu ku aqoonsado. marka dadkaas dhalinyarada oo wadankii wax ku soo bartay gabdho iyo wiilalba shahaadadiisan in loo aqoonsado waaye, xirfadooda in loo aqoonsado waa, kartidooda in loo aqoonsado. dhalinyaro badan oo firfircoon oo maaragtay qurbaha ka anagu qurbaha xoogaa waxba jira dadka ku wareereen. marka waxaa naga roon dadkan dhalinyarada wadankooda jooga wadankii la qabsadeen ka cabsanayn. hadda wadarta qurba joogo dhan waxay ku jiraan hoteelo laakiin nimankii kale hoteelku ma jiraan. marka ninkan dhalinyarada isku kalsoon ana waxaan qabaa in shaqada uu qaban karo in la siiyo inaan shahaadada lagu aqoonsanay kan iyo maxaa cadeynaa inaan la aqoonsanayn. haddaan la aqoonsanayn maxaa marka hore shahaadada la aqoonsanayn wadanka looga sameeyay. waa in ay Soomaaliya isku kalsoonaato, waa inay shahaadooyinkooda ku kalsoonaato, kheyraadkooda ku kalsoonaato, dabiiciga ah waxay ku kalsoonaato in iyagu Soomaalida anu waxaan qabaa hadayba dad wadankooda iyo naftooda aamin inay yihiin in qurbaha anaga waan tagna inaga noo imaanay ingiriiska naftigiisa noo imaanay iyo wadamada kale. maadaama magaalada Muqdisho sanadkii 2012 ka tagtay sidaad ii sheegtay isdhexgalka dadka qurba joogta ah ka imaanaya dibadda iyo dadkii Muqdisho joogay sidoo yahay dad isfahmi kara ma yihiin mise dad laba jaanib oo kale ay isku fahmayaan. runtii waxa u dhaxeeyay gaab markaan aniga arkay gaabka u dhaxeeyana waxay tahay koo horta dadkii gudaha joogay waxay bafoobiya ama ay ka argagaxsaneen dadkan dhahay ana diaspora oo wadanka ka imid aqoon laho kan ah. marka waxaad moodaa in xoogaa la kala kuwaan qurba jooguna ayagu waa cabsanayeen nin dilay iyo nin kale ma kala aqoonay. okay adiga waxaad leedahay urur la yiraahdo horumarinta Soomaaliya ma samayso wali inaad isku daydo inaad samayso seminaaro ama workshopyo la isku fahansiinayo dadkii wax bartay ee dalka ku sugnaa iyo dadkan qurbaha ka yimid si isdhexgal bulsho u dhexmaro dalkina ay wax u wada qaybsadaan. anaga qorshaha waxa noogu jiray kamid qorshaha waxa noogu jira in aan sameeyno seminaaro isfaham ah. isfahamkaasna ma aha oo kaliya in labadan dad la isbaro. isfahamku wuxuu yahay in qof walba asaga la isbaro. markii qofka asaga la isbaro wuxuu baran doonaa qofkan kaleeto. qofku markii xirfadiisa la baro, kartida uu leeyahay la baro, inuu wadankii wax ku kordhin karo la baro, wuxuu ogaanayaa qofkan kale oo ka yimid diaspora inuusan ka fiicnayn. marka waxaa imaanaya wax la yiraahdo tartankuna wuxuu keenaa horumarin uu keenaa. marka qofkan adiga yimid oo qurbaha ka yimid wuxuu la yimid ilaahay baa naga og moogta dad ayagu qurbaha joogan wax soo baranaa jira. marka in dadkii guduhu ay iyagana isku kalsoonaadaan dadkan walaalahoodana sidaan u sheegay u arkaan dad wadankii kala soo nacay oo wadankoodii xiiso u hay inay yihiin. marka adoo wadankaaga xiiso u hay haddii lagu dilo oo lagu qarxiyo oo la yidhaha meel walbay galeen waa dhibaato. haddii ayaguna ay dadkii gudihii joogay intaa usoo dhabar adeega 21 sano aniga ka maqnaa qofkii wadanka jooga oo intaa xabadda ku dhacaysa oo u dhabar adeega waa inaan ahmiyadda koowaad siiyo. marka waa waxyaabaha qorshaha noogu jiray taa inaan horta dadkii dhalinyaro u siiyo dadkii gudaha jooga inaan wax u tarnaa anaga. hadda dahab waxaad u socotaa dalkii qorshahaaga ugu horeeyay ee dalka markaa tagto aad is leedahay waxaas ugu horeeyay wax ka qabanaya maxay tahay? wad mahadsantahay horta aniga 2002 alifkii markaan tagay waxaan sameeyay researchgaas oo ah dadkii adiga waxa kugu jira fikrado badan laakiin waxa laga yaabaa fikradda adigu aad wadatid iyo baahida dadku inay kala duwan yihiin. marka anaga waxaan sameeynay research inaan ogaan horta baahida dadka waxay noo sheegeen inay ganacsi waxay noo sheegeen inay dadkaasi ay jecel yihiin inay helaan waayo hay-aduhu markay tagaan cuntaa la qaybiya cuntadiina lama arko oo maxay waxa dhici karta haddaan xataa laga dhicinin maanta qofka hadduu cuno berri wuu ka baahan yahay. marka waxaan raadinay war maxaa dadka loo sameyn karaa. markaas aan tagnoon ogaanay
u baahan yihiin inay tahay dadku waxay ku noolaadaan oo long term ama waqti dheer ah waxaan sameynay inaan ogaano waxyaabaha sida ganacsiga aan hadda anigu ku sheego soo barta kuleymiiska yarka ah waxaan sameynay inaan 100 naagood ku dhawaad inaan siinay 500 oo maxay ahayd dollar oo naagtii maxay ahayd ay ku samaysanayso ganacsiga yarka ama cuntada miiska saarato oo hagato sokortii waxyaabaha loo baahan yahay ama hilib ama dhuxul ama qudaar waxaan sameynoo kale inaan dadka u qaybino wax la yiraahdo gaari dameer iyo dameerkiisii ama gaari gacan dhalinyaro badan waxaan u sameynay oo maaragtay duurka iska joogay inaan shoe polish kabaasida loo waxeeyo waxaan qaybinay wax la yiraahdo makiinadaha cajiinka shiida oo marna galeedii masagada ku shiida hadaad soo rabtid marna aad canjeero iyo waxa u isticmaali kartid hadda markaan noqdo waxaan rabaa isla qorshihii wuxuu ahaa tijaabo marka in aan hadda asagiyo kaleeto qorshaha iigu horeeyay waxay tahay inaan baaritaan sameeyo muqdisho marka inaan xooga saaro ma aha laakiin dhinaca harqaamada inaan u sameyno factory meel harqaamo lagu sameeyo harqaamadaasna aysan noqonin in maradan yarta iyo dirci lagu tolo laakiin inay noqoto harqaan warshad camal oo ilmaha iskuulaadkii dharka iskuulka soo saari kara uniformkii askartii dharkoodii soo saari kara haday jiraan maaragtay hay'ado ama maqaayado uniform inay u sameeyaan marka inay noqoto wax lacag fiican oo ka imaan karo xamar taas iga qorshaysan laakiin hadda qorshaygu waxa weey inaan dhinacan shabeellada hoose iyo baydhabo in ayadana ahmiyada siiyo oo fiirino wixii aan u qaban karno marka qorshe iigu hore waxa marka hore inaan ogaado baahida jirta maxay dadku u baahan yihiin markay dadku ay noo sheegaan waxay u baahan yihiin marka inaan wixii qiimeeyno hadduu yiraahdo qof waxaan u baahanahay gaari yaroon qudaarta uga qaado beerta oo ku geeyo suuqa wuxuu gaarigaas yar ku kici karaa hadduu qofku yiraahdo sidii hore makiinadii baan rabaa cajiinka hadduu yiraahdo dukaan yar waxaan rabaa kiosk dukaan yar inaan furto dabakaaya yar marka hornada aan waxaan u socdaa daraasaad haddii ilaahay raalli ka noqdo kabacdina sanadka cusub inaan marka wixii aan daraasaad ku sameynay inaan u bedelno mashruuc maadaama waqtigaad uu noogu yaryahay barnaamijna aan looga bogo karin waxqabadkaaga iyo horumarada ka socda dalka dadka ku daawanaya kala socda shaashada caalamiga Home Cable TV ugu dambeyn maxaad u baaqaysaa marka koowaad aniga waxaan u baaqayaa dadka qurba jooga ah dadka Soomaalida ah oo qurba jooga ah oo aqoonta leh ama ganacsi leh aniga waxaan ugu baaqayaa wadankooda inay ku noqdaan oo wadankii ay dhisaan wadanku wuxuu u baahan yahay dib dhis kuna ma aha mid ay dawladdu dhisto wadan waxaa dhistay shacabkiisa marka aniga waxaan ugu baaqayaa inay wadankii ku soo noqdaan oo ay wadankii dib u dhisaan kii ganacsi inuu meesha ka samaysto kii guri inuu daga rabo guri meesha ka samaysto waayo guriyaha markii la dhisto magaalada bilicdeeda soo baxaysa quruxdeedii magaalada way sii balaaranaysa kii maaragtay aqoon leh oo asagu aqoon leh oo aqoontiisa inuu ku celiyo wadankii u baahan qofkii sida iyadoo kale hay'ad wadana inuu hay'adii xafiis uga sameeyo Soomaaliya oo marka dadkii kale wax u qabto xoogan in la saaro waxbarashadii ilmaha iyo dhalinyarada waayo dhalinyarada aniga aad ay muhiim iigu tahay maadaama ay yihiin jiilka soo koraya ee bari la rabo inay nagala wareegaan ee wadankii ay wax u qabtaan waxaan rajaynayaa dadkaas inay noqdaan dad aan sida dadkii horeeto ahayn dad warlooda ah ama maaragtay dagaal iyo fidno iyo qabiil ka shaqeey inaysan ahayn waayo dadka qurbaha jooga way arkeen inaan qabiil aan la kala jeclayn anaga wax qabiil ka sidaan sheegano markaan is dhiibayno nama kala jecla dadkan waxaan unahay qof Soomaali oo madow maadaama marka aad ogaatay isbaratay wadankaagii waxa la rabaa waxaad baratay inaad ku soo celiso oo aan ka mamnuucno in dadkii la isu dilo qabyaalad in la isku waxyeeleeyo maaragtay la isku dhibaateeyo marka dadka saas ayaan ugu baaqayaa dadka kale oo rabin inay soo noqdaan waxaan ku baaqayaa inay sidoodii sii wadaan inay waxay awoodaan iska aruuriyaan si loo gaarsiiyo dadka dhibaataysan oo kamid yihiin kuwa agoonta ah oo kamid yihiin hooyadii ninkeedii la dilay oo waxba haysanin dadkii waaweynaa dad badan oo curiyaan oo anigu ku soo arkay xamar oo runtii aad iyo aad qalbigayga ugu weyn dadkaas oo dhan waxay u baahan yihiin dhaqaalaha dadka qurba jooga ah ee helaan waayo qofka qurba jooga ah dhaqaalaha uu helo haba yaraato laakiin nabadu ku haystaa meel uu seexdo haystaa wuxuu cabo haystaa maanta uu qadi karaa haduu xataa iska isticmaalo maarid complex yar oo raqiis ah laakiin waxa jira midaan intaas bahaysan oo magaalo wadankii jira marka waxaan iyagana ugu baaqayaa in ay siiba dumarka waayo anu waxaan aaminsanahay dumarku inay yihiin laf dhabarka Soomaalida inay wadanka u qabtaan
daawada intaan kusoo gabagabeynayna barnaamijkeeni madasha aqoonyahanka oo toddobaadkan ay marti igu ahayd Dahabo Xaaji Ciise oo ku magac dheer Dahabo Dawlo oo ah madaxa ururka horumarinta Soomaaliyeed marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano Daadihiye. Dahabo waqtiga qaaliga ah oo hortay barnaamijka mar kale waan kaaga mahadcelinayaa. aad iyo aad barnaamijku waxaan la socodsiinayay aniga Cabdifataax Maxamed Cilmi ah dhanka farsamada iyo kaamirada waxa gacan weyn iga siiyay Cabdicasiis Ibraahim Ali iyo Xasan Sheekh Umar. Intaynu ku kulmi doono barnaamijka mid lamid ah sidaas iyo nabadgelyo. هذا يا دمعة سنتي